ganacsato Soomaaliyeed oo dukaamo ganacsi ku lahaa magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa la sheegayaa in laga burburiyay kadib markii amarkaasi ay dhiibtay dawladda hoose ee magaalada Johannesburg. wariyayna Idris Guure oo ku sugan halkaasi ayaa warkan halkaasi inooga soo diray. goobahan ganacsi ay Soomaalidu ku lahayn xaafadda Meefar ee magaalada Johannesburg ayaa saakay dawladda hoose iyo ciidamada booliska dalkani Koonfur Afrika waxay ka fuliyeen howlgal burburinayay kuwaas oo ay dawladda hoose sheegtay in ay hayaan goobo si sharci darro ku dhisan. qaar ka mid ah milkiilayaasha goobihii la burburiyay ayaa iiga warbixiyay dareenkooda ku aadan in saakay la burburiyo halkii ay ku ganacsan jireen. Soomaaliya ay ku jirto la noqotaan oo isku xigtay nasiib xumo aan oo fadhina iyo digniin iyo xabla isasiin bay soo baxgaleen saadaraad oo ayabti shaqadooda bilowdeen oo kana ayabti wixii aan badbaadin karay Soomaaliya nala badbaadin karto nala badbaadisay way ku maasiin ayabti inta badan oo badbaadin qaar jajaba iyo qaar wax isme marka hawsha saas oo dhan saakay يشاي ميجا شرع درا بسنتاي دواك أوغال العنا بيا العنا بيجي نجينا دولة دوس المشيبين معنا خالد بيجي سيئة واك ويران هذه طبعا كل هذا العمل هذا كما كان مسكروني لعكت ممكن ممكن لقي كده لعكت كده هذين أوكي ورقوينا سويسين ورقوين سوين عرفتنا هذا بعد أو معنا على واحد من بنات وسوي بيجي هذا كل هذا حال سنة جيري موسى وعمايركا حافظة أي Soomaalidu ka degan tahay magaalada Johannesburg ee Meefar ayaa warbaahinta uga warbixiyay sababaha keenay in la burburiyo goobaha ay ku ganacsadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku yaala xaafadda Meefar ee magaalada Johannesburg. Now I think what is happening here is an eye-opener. We have convened a meeting with the relevant department, the relevant people that are affected. I think our advice is going to be very simple, that when people receive the letter from the city of Joburg, they should now start engaging with the city of Joburg. So I'm going to encourage them, and we are also going to announce it even at the mosque so that people can know exactly, because it looks like the other people are still having those letters, the court orders and so on, but they are not talking to the city. So dhanka kale gudoomiyaha jaaliyadda Somali Community Board Amir Sheikh ayaa waxa uu sheegay in ay kala hadleen dawladda hoose in ay joojiyaan howlahan ay burburinta ay ku hayaan goobaha ay ku ganacsadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. waan nasiib darro arrinta maanta inta ka dhacday in hanti Soomaaliyeed lagu burburiyo laakiin si mar walba sharciga ayaa sareeyo arintana ma mid walba waxay soo bilaabatay sanadka 2011 inkastoo dadka hantida la isku dayeen in xaaladdu ay mar walba ay bedelaan si ganacsigooda u socdo balse nasiib darro saaka waxaan ku waabarisanay ciidamada la dul keenay in guriga la dumiyo insha Allah waxaan sameynaynaa labada galabnimo maanta waxaan leenahay kulan aan uga hadlayno arrimaha noocan oo kala ma arrinta tan oo kaliya ilaa isdeed guri ay xaafadda la doonay in la dumiyo insha Allah ta'ala annaga ma aragtay la hadlayna dadka hantida iskale culumaa diinka iyo waxgaradka Soomaaliyeed waxaan isku dayi doonaa sal noocan oo kale inuu xaafadda ka dhacin ana nasiib darro aan uga tacsiinayna dadka dibka ku dhacay insha Allah waxaan ka codsanaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan joognaa dal uu sharci iyo kala dambeyn ka jiro inay mar walba u hoggaansamaan awaamirta dawladda haddii loo keeno maaragtay warqado ka socota dawladda aysan maaragtay miiska hoostiisa dhigin ay fadlan u gudbiyaan dadka hantida leh si fal noocan oo kale uu dhacay xaafadda waa markii ugu horeysay ay dawladda hoose iyo ciidamada booliska dalkan Koonfur Afrika fuliyaan howlgal lagu burburinayo goobo ay ku ganacsanayaan muwaadiniin Soomaaliyeed walow ay jaaliyadaha Soomaalida iyo madaxda dawladda hoose ay kulan wada qaadan doonaan galin dambe ee maanta mana looga natiijada ka soo bixi doonto kulankooda. Idris Sheikh Ahmed Guure, telefishinka caalamiga Kalsan dalka Koonfur Afrika.